dadka waxaan ogeysiinayaa dowguusu yahay soomaaliday dayoomay wanaag idinka doonto soomaaliday daya wanaag idinka doortooye dooda bari dareeriga badiyo saylac dariifkeeda dusha koonfureediyo ilaa weliga daaciisa degmadeena oo idil haddii aan dayay abwaabteeda niman duuriyadu nafa noqon deelka la waaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي بميل كستو الدنيا دافعة كشوفتان وحقدون أدوغا براتين تلفزيون كصومالي سات حرونتي سدحي مقالة دا بيرميهام إن ستوصل ليدين كسو تبيو مالين والبو سبتي أحليغان أوكالي تاس وأنو كسو قادنو برنامج يكال دوان كواسو إسوغو جرا كوا سياسات كوا دقالي كوا بلشدات إيا ديني با برنامج يدو حقدون ayaa mar walba waxaanu ku soo qaadanaa markaas waxaanu isleenahay dadku aad iyo aad bay u danaynayaan inay wax ka ogaadaan ama markaas dadka Soomaaliyeed waxa hadalhayntiisu ay ugu badan yihiin oo ay rabaan inay wax badan ka sii ogaadaan si ay u ogaadaan waxa ay ka hadlayaan sida loola socdo nasiib wanaag waxaanu ku soo qaadanaynaa haddii rabbiga awoodda badani ogolaado ayadoo baryahan dambaba dalka Soomaaliya idil ahaantiis iyo guud ahaan deegaanada dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiinba hadalhaynta dhaqaale ay ku badatay taasoo ay sababteeduna tahay dadka gudaha ku jira iyo kuwa dibadda joogaba inay yihiin kuwa isku xiran sababo badan dartood kuwaas oo kala ah xag dhaqaale iyo sababaha siyaasadeed ee ka jira dalkeenii hooyo dadka ayaa baryahan dambe waxay ahaayeen kuwa la hadal hayay shilinka Soomaaliga iyo dollarka cuntada saddexdaas oo aad moodo qaabka isugu jaango'an yihiin inay tahay qaabab kala duwan iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed inta badani ay wax ku soo iibsato dollarka dadkana uga iibiso oo dollar markastoo hoos u dhac ku yimaado dollarka ama shilin Soomaaliguna ay noqdaan waxyaabaha dadka Soomaaliyeed baahidoodu ay sida aadka ugu badan tahay marka ay noqoto xagga cuntada dharka ama caafimaadka ama ha noqoto xagga qalabkan kale ee guryaha loo isticmaalo ama dadku ay inta badan adeegsadaan korontada taleefanada iyo wixii la halmaala ayaa maalmahan dambe dhawaqa waxa uu u badnaa ayadoo la laayahay shilinkii Soomaaliga ahaa maciishaduna ay noqotay mid meesheedii taagan ayadoo isbeddello badanina ay jiraan hase ahaatee dadka ayaa siyaabo kala duwan u dhigaya arrimahaas waxaan rabnaa haddii rabbiga awoodda badani noo ogolaado in uu maanta nagala qayb qaato Siciid Cali Shire oo aan filayo inay dad badani oo Soomaaliyeed horay uga daawadeen telefishinkan uuna yahay nin dhaqaalaha bartay dhaqaaliyahan Soomaaliyeedna ah soo noqday xildhibaanadii Soomaaliyeed ka mid ah ama aan iraahdee siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee hadda ka mid ah Siciid waa qoraa horeyna waxa uu qoray buugaag ka hadlaysa dhaqaalaha iyo hogaaminta haddaba ugu horreyntii Siciid waxaan rabaa su-aasha ugu horreyso oo aan weydiinayo waxa ay tahay qayladhaantan soo yeertay oo la la'yahay shilinka Soomaaliga Siciid ugu horreyntii waxaan rabay inaan ku weydiiyo haddii aanu ka fiirino marka horeba dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo siyaasaddu sidee bay isu saameeyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شينو أديك يا بهذا الصومالي ميديا يا مجتمع الداون يا تي في جبواد السلامية شينو هل طلابان دبوا سيدعي لها سؤال شيء ويديسي marka hore inaynu fahanno maadaama waxaynu ka hadlaynaa uu yahay shilin Soomaaliga inaynu fahanno shilin Soomaaligu meesha uu kaga jiro nolosha bini'aadamka waxa la yiraahdaa nolosha bini'aadamka oo dhan lacagtu currency-gu waxa la yiraahdaa sida dhiigu uu muhiim ugu yahay bini'aadamka yani meesha dhiigu kaga jiro bini'aadamka ay lacagtuna kaga jirtaa dhaqaalaha
dhaqaale aan lacag lahayn ma shaqeeyo waa yani birtu way isxoqaysaa haddii aan lubricate ama oil la marin waa waxa dhaqaalaha kala socodsiiya weeyaan currency ama lacagtu lacag la-aanteed nolol ma jirto sida dhiig la-aantiisa qof binaadan u noolaan karin lacag la-aanteedna nolol ma jirto lacagtu marka ahmiyad weyn bay ugu fadhidaa nolosha haddii jiro ku dhacdana waxay u badan tahay ummadda inay mahagaasiso ama marka dambe ay keento fashil iyo burbur dadka qaarkiisna markayba ka hadlayaan asbaabihii keenay fashilkii iyo burburkii ku dhacay dowladda Soomaaliya ee 90kii faktarada ugu waaweyn waxay ku daraan jahwareer dhaqaale oo ku salaysnaa lacagtii oo la maamuli kari waayay buug aad u fiican waxaa qoray Maxamed Dalmar buug ka hadlay exchange rate policy Soomaaliya siyaasadii sarifka lacagaha ee Soomaaliya 60kii ilaa 90kii buug aad u fiican oo markii aad akhridid aad ogaanaysay inkastoo eedaha waxyaabo ka fara badan la saaro misana faktarka ugu weyn ee horseeday dhibta Soomaaliya inuu ahaa shilin Soomaaliga iyo lacagtii oo la maamuli kari waayay haddii lacagta la maamuli kari waayo saan sheegna waxay ku dambaysaa fashil waayo lacagtu waxay ka mid tahay asaasiyaadka nolosha sida bini'aadamku biyo ugu baahan yahay oo hawo ugu baahan yahay ayay lacagtuna waxay ka mid tahay waxyaabihii fududeynaya nolosha oo dhan haddii lacagtu meesha ka baxdo noloshii bini'aadamka meesha ka baxday lacagtana waxaa mas'uul ka ah dawlad ayaa mas'uul ka ah dawladda dejisa siyaasadii maaliyadeed iyo dhaqaale ee wadanka dabcan dawladuna waxay leedahay siyaasad ay ka leedahay wadanka dhan iyo jihada u socdo dhaqaaluhuna wuxuu noqonayaa tiirka ugu muhiimsan tiirarka siyaasadda dawladda ayuu noqonayaa haddii tiirkaasi fashilmo inta kale oo dhamina waa fashilmaysa amni ma shaqaynayo horumar ma imaanayo diblomaasiyad ma imaanayso dib u dhis ma imaanayo waxba ma imaanayaan haddii la maamuli kari waayo faktarka dhaqaalaha hadda dawladda cusub 6 faktor 6 wax bay tiri baan saaraynaa targetka waxa ugu horeeya amni laakiin ma imaanayo hadduusan dhaqaale jirin haddii askariga aadan mushaar u hayn noloshii dadka haddaadan controli karin yani asbaabihii keenayey fawdada iyo askarigu inuu laamiga istaago qofka bini'aadanka markuu noloshiisii waayo inuu fawdo bilaabo oo wax dhaco haddii aad meesha ka saari weydid waa fashil baa ku dambeynaysaa siyaasadda marka siyaasadda iyo dhaqaaluhu waa coin ama lacag shilin labada dhinac laga fiiriyo hal dhinac ma fiirin kartid yani siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan siyaasad aan dhaqaale lahayni maaha siyaasad dhaqaale aan siyaasad lahayna maaha dhaqaale walba waxaa beesu ah siyaasadoo dhammina waxay ku tiirsan tahay ama waxa ay raacdo oo ku shaqayso waa dhaqaale marka ma kala maarmaan siyaasadda dhaqaale waxaa mas-uulka ah dawladda haddaan weliba fiirino wadankeena waa dal 50% dadka dakhliga soo gala maalintii uu ka yaryahay $1 waa dad masaakiin ah dawladdu waxaa la rabaa waxa ugu horeeya ahmiyadda ugu horeysa ay ka fikirayso inuu noqdo dadka bini'aadanka ah oo masaakiinta noloshooda si u heli lahaayeen haddii marka jiro ay gasho dhaqaalihii oo iyadoo soo maraysa lacagtiina waxay noqonaysaa jiro curyaamisa oo baabi'isa oo hagaasisa noloshii dadkay noqonaysaa haddii aynu wider context xoogaa ballaarino waynu ognahay oo hadda fililah alxamdu waynu nooleen xilli aynu aragno jahwareerka dhaqaale iyo caalamka waliba jahwareerka ka dhasha marka hore siyaasadda lacagta oo xumaata monetary policy siyaasadda lacagta oo xumaata oo ka abuurma ama sicir barar ka abuurmo ama exchange rate ku isbedelo dhibaatooyinka ka abuurma 2008 ilaa wixii ka dambeysay ee ka dhacday galbeedka waynu aragnay iyo saameynta ku yeelatay bangiyada ugu waaweyn ay filiseen wadamo dhami inay qarka isu taageen inay filisaan oo ay ka mid yihiin Greega iyo wadamo lamid ah asbaab la xiriira maareyntii iyo maamulidii maaliyadda oo xumaatay asbaabta keentay in xumaatan ay ahayd siyaasadii maaliyadda oo xumaatay Saciid Soomaaliya oo kale dhaqaalaheeda qaabkee baad is leedahay waa loo maareyn karaa oo loo maamuli karaa maadaama aanu ognahay xaaladda ay Soomaaliya maanta ay ku sugan tahay markaan isticmaalno kelmadda dhaqaale waynu ka baxnay marka issue dhaqaaluhu ka ballaaran yahay lacagtu waa mid kamid ah dhaqaalaha waxaan rabaa in aanu u soo noqono oo aan ifino laakiin bal marka hore sawir guud aan waxaan ka helno way dadku inta badan hadda waxay ka cabanayaan waa shilin Soomaaliga oo la laayahay taasna ay dadkii ay bideen ganacsatada ahaa inay dollar wax ku iibsadaan marka annagoo u soo noqon doono markii dalka iyaga oo kala ah oo ognahay sida uu yahay hadda siyaasad ahaan iyo si walbaba dhaqaalihiisa oo kale maxaa la dhihi karaa qaabka ugu sahlan oo la dhihi karo waa loo maareyn karaa Cabdiraxmaanow waxaa laga u horeeya waxa weeye dawladdu inay la timaado siyaasad dhaqaale
dowladdu waa inay samayso yani meel loo socdo hiraal vision ummadeed oo ay tiraahdo 10 sano ka bacdi ama 20 sano ka bacdi ummadda waxaan u raynaa meeshaas si meesha loo gaaro waxay noqonaysaa marka in la qaado tallaabooyinkan sektarkee ama dhinacee baynu awoodda saari doonaa waaga hore dhaqaalaha Soomaaliya 60% wuxuu ka imaan jiray xoolaha nool mustaqbalka 20% baa ka imaan doona xoolaha nool isbedel baa ku dhacay hadda demografiga Soomaaliya kalluumaysigu raad intee leeg ku yeelan doona dhaqaalaha Soomaaliya beeruhu raad intee leeg ku yeelan doonaan warshado noocee baa wadan ku yeelan doona sektarkee baynu awoodda saari doonaa aqoon nooceenu yeelan doonaa ganacsi nooceenu yeelan doonaa marka laga hadlayo dhaqaale waxay noqonaysaa in ummad dhan sidii loo jihayn lahaa mustaqbalka fog siyaasadeedii inay dowladdu la timaado waxaan sheegayno oo dhan sidii dalka dib loogu dhisi lahaa sektarkii awoodda la saari lahaa ciddaynu la ganacsan lahayn bolisigii baseka u noqon lahayd waxaasoo dhammina waxay qayb ka noqonayaan siyaasadii dhaqaalaha ee wadanka laakiin waxoo dhan waxaa bays u ah inay dowladdu soo bandhigto siyaasad dhaqaale ay ka leedahay wadanka Soomaaliya waa burburtay waxay u baahan tahay dib u dhis waxay u baahan tahay institutionska in la soo celiyo waxay u baahan tahay dadka niyadiisii in la dejiyo si ay ugu qancaan oo ugu kalsoonaadaan dhaqaalihii iyo wadanka ugu kalsoonaadaan waxaasoo dhanna waxaa bays u ah siyaasad faktarka ama waxa ilaa hadda laga leeyahay dowladana waa ujeedada ama siyaasadda dhaqaale ay ka leedahay wadankan ilaa hadda maanaan maqal amniga waynu maqalay federalismka waynu maqalay dowlad goboleedyada waynu maqalay yani waxaa jira ishiyo dowladda energygeedii oo dhan consume gareeyay ama ku mashquushay waxaan isleeyahay dhibta ugu weyn ee hadda Soomaaliya haysata ama dhibta keentayba inay dhibtaan ka dhacdo Soomaaliya waxay ahayd dhib dhaqaalaha haddii la maareyn kari waayo amni lama maareyn karayo haddii dhaqaalaha la maareyn kari waayo dib u heshiisiin lama maareyn karayo haddii dhaqaalaha la maareyn kari waayo xiriir aynu caalamka la yeelano macna ma samaynayo marka wadanka Soomaaliya laga hadlayo waa holistic waa in wadanka dhan la fiiriyo maaha in degmo la fiiriyo ama gobol gaar ah in la fiiriyo yani populationkeenu waa given dhulkaynu haysanay waa la yaqaanaa waa inaynu marka inagoo ka faa'iidaysanayna dhulkaynu haysanay dadkaynu haysanay hantidaynu heli karnay sida ugu fiican aynu dhahno 10 sano ka bacdi 20 sano ka bacdi 30 sano ka bacdi xagee gaari karnaa waxbarasho nooceeynu maalgelin ku sameynaa warshado nooceeynu maalgelin ku sameynaa ayaynu la ganacsanaynaa maxaynu ka ganacsanaynaa infrastructure nooceeya baynu yeelanaynaa waxaasoo dhan waxay noqonayaan policy haddaan ahno waxaan rabnaa in Soomaaliya ay noqoto meel lamid ka soo qaad Imaaraadka kale Dubai oo kale oo aynu maalgelino infrastructure iyo dekedo oo aynu ku xisaabtano 2020 wixii ka dambeeyay 40% baajka Soomaaliya inuu ka soo baxo maraakiibta maraysa badda waxaad u baahan siyaasadii la yimaado qorshihii la dejiyo maalgelinta u baahnayd la rays gareeyo dadkii ka shaqeyn lahaa hadda institutionadii meelaha gali lahaayeen la furo ganacsatadii ummadii oo dhan loo jeeyo dhinacaas haddaynu dhahno waxay noqon doonaa wadan beerood oo noloshooda ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool iyo kalluumaysiga iyo khayraadka noocaas waxay noqonaysaa in hadda lala yimaado bolisigiisa inuu sektarka u develop gareyn lahayn haddaynu rabno inay dhaqaalaheenu ku saleysnaado shidaal iyo macaadin hadda dhulka hoostiisa ku qabsoon inaan ka warhayn waxay noqonaysaa inaynu institutionada waxbarashada dhisno dadkii aqoonta u lahaa keeno maalgelintii loo baahnaa keeno siyaasadii adduunka ku maalgelin lahaa oo kusoo saari lahaa khayraadka in la keeno marka waa holistic laakiin waxaasoo dhan waxaa bays ah kow dowladdu inay samayso vision ama hiraal xagee bay dadkan u wadaa 20 sano 30 sano ka bacdi xagee bay u wadaa kow qorshe noocee bay dowladdu haysaa si loo gaaro meeshaas yani geedigan ama hayaankan la gelayo oo socon doono 10 sano 20 sano wadadii la mari lahaa iyo qaabkii loo mari lahaa qorshaheedii dowladda laga rabo okay marka taas hadda Saciid waa isla fahanay markaan u soo noqono ubuucdii barnaamijka shilin Soomaaliga waa la waayay baa la leeyahay dad badanina waxay qabaan inaan la waayin marka xagee jira shilin Soomaaligi dadkii dollar baa lagu kala gadanaya shaahi dollar baa lagu cabayaa bariiskii dollar baa ku gadanaysa dharkii dollar baalashli xataa waxa leeyahay dollar baa la siinaya Cabdiraxmaanow waynu ognahay Soomaaliya wixii ka dambeeyay 91 inaysan jirin dawlad mas'uul ka ah lacagta shilin Soomaaliga markay dhaxday dawladdii dhexe Soomaaliya waxay noqotay wadan xor ah يعني markaan leeyahay wadan xor waxaan ka wadaa wadan demand-ka iyo supply-ga baahida iyo dalabku ayaa go'aaminayay sicirka wax kasta yani roolkii dawladda oo ahaa in iyadu ama sicirka dejiso ama ay fargelin ku samayso suuqa ama ay lacag soo daabacato ama ay dulsaar samayso yani mechanismkii dawladdii wax ku control jirtay oo dhan baa meesha ka baxay waxay noqotay marka demand-kii iyo supply-gii ama dalabkii
iyo baahidii inay gooyaan sicirka wax lagu gadanayo sicirka wax lagu kala sarrifanayo maalin walba sarrifku meel buu joog tusaale ahaan waxaa arkaysaa 2006 halka dollar waxaa 13,000 oo shilin Soomaaliya kowdii maarsana shilin Soomaaliga wuxuu halka dollar waxaa 13,000 oo shilin Soomaaliya laakiin muddada yarta dhexdeeda 8 sano shilin Soomaaligu yani meeshu 13,000 ku ah xilligaas 2010kii 2009kii 8 wuxuu marayay 32,000 yani almost wuu laban laabmay maxaa keenay marka inuu shilin isbedelka intaas la inuu yimaado qayb marka mar walba waxaa ka ahayd supply-ga shilin Soomaaliga yani tirada shilin Soomaaliga suuqa soo galaysa ama tirada dollarka suuqa soo galaysa waa demand and supply haddii shilin Soomaaligu bato dabcan يعني انت tirada shilin Soomaaliga u baahan tahay si ugu gadatay $1 sare u kacaysa hadii shilin Soomaaligu yaraadana lacagta u baahan tahay si ugu gadatay $1 hoos bay u dhacaysaa marka waa demand and supply qof kasta oo fiiriyo isbedel ku dhacayo shilin Soomaaliga wuu identify gareyn karaa ama wuu ogaan karaa asbaabta keentay inuu isbedel ku yiraahdo shilin Soomaaliga wixii hadda ka horeeyay yani mar kasta oo ganacsato ama maamuladii jiray mid kamid uu soo daabacdo shilin Soomaali fara badan isla markiiba isbedel baa ku dhacay shilin Soomaaliga isbedel baa ku dhacay oo tusaale ahaan isagoo halka dollar 13,000 ayuu hal mar wuxuu gaalay 25,000 28,000 gaaray asbaabtoo ah lacag shilin Soomaaliya fara badan waxaa sare u kacay shilin Soomaaliga suuqa yaalay isagoo dollarku intiisa hore yahay maxaa dhacay marka hadeer wixii ka dambeeyay 2006 wax kale ay ku soo siyaaday saa sheegtay waxaynu ku soo siyaaday teknolojiyada waxay keentay baahidii loo qabay shilin Soomaaliga inuu yaraado ayay keentay oo hadda waxa aad loo isticmaalaa in lacagta lagu baxo lagu kaydsado yani hawshii uu qaban jirtay lacagtu ayaa waxa bedelay mobilkii telefoonkii baa bedelay qofku lacagtiisa wuxuu ku qaadanayaa mobilkii wuxuu gadanayaa mobilkii marka waxaan dhahaynaa laba arrimood baa dhacay kow waxa hoos u dhacay baahidii loo qabay shilin Soomaaliya oo dhan gobolada qaarkood waxa la yiraahdaa transactionada waxa wax lagu kala gato 60 ilaa 70% lama arko lacag la taaban karo waxay maraan electronic mobile phones kaas wax lagu kala gataa 60 ilaa 70% marka maamulada jira say u controlanta waa wax kale taasi waa in la fogaanaysa oo ay sectorkan telecommunication-ka iyo bunuugteena Somaliland way ka duwan tahay waxay leedahay banking act xeer u gaar ah bunuugteeda waxaan isleeyahay telecommunication actina waa leedahay laakiin wadanka intiisa kale u maleynmayo bangi ama liisan la siiyo sharci hagaah marka laga soo tago shuruucdii 60aadkii 70aadkii oo dawladda dhexe burburtay 91 ay ku shaqeynaysay shuruuc ka dambeysay inay jiraan u maleynmayo haddii jiraan wax la hirgeliyo u maleynmayo marka issue kale inaan ka gelin marka labada arrimood soo kordhay waxay ahayd isticmaalkii lacagta caadiga ah oo la qaadan jiray oo yaraaday kow marka taasoo kale waxay ma keenteen in isbedelka inta la eego dhaco laakiin waxaan leeyahay hadda asbaabta keentay in isbedelka intaas la eego dhaco wixii ka dambeeyay 2012 sanadkii hore dhexdiisii wixii ka dambeeyay waxa isbedel ku yimi koonfurta Soomaaliya isbedelka ku yimi koonfurta Soomaaliya ayaa wuxuu isbedel ku keenay dhaqaalaha wadanka xoreyntii xamar iyo agagaarkeeda lagu xoreeyay shabaab isbedelkii dawladnimo ee dhacay labaduba waxay keeneen isbedel weyn oo dhaqaale keeneen labada isbedel ay keeneen waxa weeyaan kow wadamo badan iyo hay'ado badan ayaa waxay wadankii geeyeen projectyo fara badan iyo lacag fara badan oo dollar ah ayay geeyeen salaam Turkiga kaliya ognahay oo lacag 300 milyan ku dhow ama caawimaad u geysay ama projectyo u geysay sidaas lamida wadamo badan ayaa si toos ah waagi hore hay'ado iyo meel kale lacag siin marin jiray ama wadanka koonfurta kaliya lacag geeyay ama barnaamijyo geeyay marka waa halkaas waxa sare u kacay dollarkii galaya Soomaaliga labo asbaab la xiriira wuxuu keenayaa yani demandkii iyo supply-gii baa isbedelaya hal mar quantity-gii dollarku markay sare u kacdo shilin Soomaaliga oo intiisa hore yahay يعني العكس شلون الصومالي قيمة استبدلها لكن أنت كلية معها لبو أمنيجي وحو كاني إن دبلس حوجن وكبلا محمر دبلس كحوجن وكبلا محمر نوحو كان إن العق فربضن دتك قرب شوكتها دتك هانتدا كلها حمر إن يقول العق بدن قليا حمر isbedel kaas aad sheegtay iyo lacagaha badan oo suuqa soo galayo marna qiimihii maciishada wax lagu iibsanayo isbedel kuma dhicin sababtu maxay noqon kartaa maciishadu waa issue kale laakiin horta aynu bal waxaan rabaa in demand-ka iyo supply-ga quantity-ga dollarku markuu sare u kaco asbaabaha keenay inuu sare u kaco yani anaga hadda dollarkii baa sare u kacay waxaa keenay inuu lacagta faraha badan oo ka imaanaysa caawimaada dibadda kow isbedelka amniga ku dhacay Soomaaliya iyo maalgashiga faraha badan oo lagu sameeyo labo
ganacsi xoogan oo hadda ka bilaabmay xamar oo waxaa kasoo degaya iyo xoolaha ka dhoofaya iyo marketkii aada u furfurmay. 3 psychological dadkii oo dareemay isbedelka ay dadku dareemeenna waxay noqotay spendi kharash garayntoodii iyo isticmaalkoodii lacagta dollarka oo sare u kacay. marka hal mar ayaa dollarkii wadanka gelaya oo aad sare ugu kacay, shilin Soomaaligeena waa intii sii hore. marka waxay noqonaysaa si aad shilin dollarkii aad u gadatay $1 ah, yani in shilin Soomaaliga yaraado bay noqonaysaa. dhinaca kale opposite-ku muxuu waagii hore, yani dollarka waxaan risago halka dollar 13,000 oo shilin abuu hal mar wuxuu gaaray 32,000 oo shilin. hal mar baa waxa aad u badatay shilin Soomaaligii isagoo dollarku intii sii yahay. haddana hal mar baa waxa aad u batay dollarkii isagoo shilin Soomaaligu intii sii yahay. laakiin hadda arrin kale jirta, hadda isticmaalkii lacagta yaraaday, isticmaalkii lacagta oo dhan baa yaraaday. marka waxaan isleeyahay lacagtu ma yaraane, waxaa jira wax kale oo la yiraahdo speculationku waa dad ganacsato ah oo raba inay ka faa'iidaan isbedelka lacagta. dadkaasaa lacagtii shilin Soomaaliga ahaa xareysanaya, dollar fara badan bay helayaan, hadhowtana lacagtii bay dib u gadayaan, waxay ka rabaan inay ka dhex faa'iidaan arrintaas. marka waxaan isleeyahay hadda waxaynu ognahay sanadkii hore oo dhan in 2 jeer ugu yaraan lacag ay dowladdii hore oo Sheekh Shariif ay soo daabacday iyo Ra'iisul Wasaare Cabdiweli oo shilin Soomaaliga hore kunkunka ahaa oo wadanka dhan la soo geliyay. يعني سند gudihiis isbedel intaas laga ku dhici karo shilin quantity-ga shilin Soomaaliga ah wadanka yaala u maleyn ma inay jirto. marka waxaan leeyahay labada arrimood ugu waaweyn hadda la identify gareyn karo waa hal mar dollarkii wadanka yaala aad sare ugu kacay iyo dadka speculatorska oo ka faa'iidaya isbedelka lacagta oo shilin Soomaaliga xareystay qaar ku xareystay. labada arrimood baa ugu daran. labada arrimoodna dawadooda waxay noqon kartaa siyaasad dawladeed. marka xareynta lacagahaas ay xareeyeen dib soo bixinteedii baad leedahay waxay ka helayaan lacag kale oo faa'iida exactly. marka asbaabtaasaa keentay in la xareeyo speculationka hadda maalmihii dhaweyd waxaan maqlaynay in Puntland lacaga lagu qabtay loo waday xamar. marka taasoo kale maxay keenaysaa? marka lacagtaas qabashadii la qabtay maxay faa'iido soo kordhinaysaa, maxayse khasaare keenaysaa? والله ملاyn mayo inay wax weyn ka bedelayso. hadda waynu ognahay sarifka Soomaaliya lagama kontrolo Boosaaso iyo Kismaayo toona. sarifka Soomaaliya waxa laga kontrolaa inta badan, yani marka ka reebno Somaliland xamar baa laga kontrolaa, suuqa Bakaara laga kontrolaa, marka qaarkoodna Afrika baa la yiraahdaa. marka lacag yar oo gaari lagu siday oo meel lagu qabtay ama haddii hadda gobolka mid gobolada Soomaaliya oo shilin Soomaali daabacdo isbedel weyn oo la taaban karo kuma keenayso baan isleeyahay. waayo arrintu waa number 1 dollarkii wadanka soo galay aad sare ugu kacay. number 2 speculatorskaas dadka raba inay ka faa'iideystaan. labada arrimood baa keenay. labada second haddii ganacsatada aanu soo noqono mar walba iyagu faa'iiday qabaan, waxay rabaan ha gadaan. canshuuraha la rabana inta badan waxaa la sheegaa inayan bixinin walow ay yartahay, maadaama ay yihiin dadka iyaga mar walba ka faa'iidayay asbaabaha lacagta isu bedeli laadahay waxyaabaha maciishada ah, waxyaabaha kaleeto oo raaxada iska dhaaf, yani waxyaabaha nolosha ah. sababtay isu bedeli laadahay maxay tahay? mar walbana dollarkii markastuu dhaco sicirkii bariiskii meeshii uu joogaa, hadduu kacana sokortii meeshii bay joogtaa. Cabdiraxmaanow laba arrimood baan ku sharaxi karaa. mid waxaan dhihi karaa ganacsatada Soomaalida naxariistii ama ka guurtay ama qiyamkoodii valueskii anshaxii ethigii ba hoos u dhacay. qiimihii ayay lahaayeen يعني أثقي أنشحي دتكو لها وحي values كما قيم ووحى قفك كعلي حمانتي سمانته ووحى وحكلا صاره ومسترد وحكو عبره وشان هذا ونرش كل أركو حسلي أما نحريستي بك جورتي وايو هلك الدولار مركوها صدق كون شيء $1 شوقي يعني شيء قيمه سي ماركت كادون كسكبه بدنا كسوقات شذالك اللي المانت الصومالية سعركو adduunka inuu ka soo qadanaa wax Dubai buu ka yimaada wadamada kale ka yimaada adduunka marka marketku inuu noqdo marketka adduunka plus transportation iyo wixii la midka waa in cashuurteena aad u yartahay ama ma jirto waa zero. marka shidaalku inta ganacsato Dubai kaga soo qaato waa la yaqaana, faa'iido ku darsan karaan waa la yaqaana. inaga cilada dhacday marka maxay noqotay markii uu shidaalku ahaa halka dollarka markuu ahaa 30,000 maantana dollarka waa 13,000 yani shaygii ahaa halka dollar wali waa halkii $1 laakiin ogow qofkii maanta dollarka marka loo soo diro suuqa tago oo sarrifto $100 maanta wuxuu helayaa $1,300,000
meeshu heli jiray 3 milyan marka maanta si uu intuu gadan jiray waaga hore u gato wuxuu noqonayaa inuu baahdo $200 iyo siyaad inuu baahday noqonaysa meeshu waaga hore ay ku filayd 100 arintuna waxay ahayd qiimaha maciishadu inay mar walba la socoto qiimaha doolarka inay la socoto shaygan hadduu yahay $1 maalinta doolarku yahay 30,000 inuu ahaado 30,000 maalinta doolarku noqdo 20,000 in qiimihii shaygu uu noqdo 20,000 maalin doolarku noqdo 10,000 in shayga qiimihiisu uu noqdo 10,000 laakiin hadda ganacsatada waxay sameynaysaa qiimihii shaygu waa intiisii marka qofkii waxay noqonaysaa inuu u baahdo $2 ama $3 dadka intiisa badanna waynu ognahay percentage fara badan ayaa dadku waxay ku nool yihiin lacagta dibadaha laga diro mushaharka dawladdu bixiso waxay ku bixisaa $1 hay'aduhu lacagaha ay geeyaan oo caawimada waxay ku bixiyaan $1 bay dadku siiyaan $20 $30 qofkii $20 $30 inuu suuqa tago sarrifto marka qofkii markuu rabo inuu wax gato waxay ku noqonaysaa 2 laab ama 3 laab lacagta inuu helo marka dhibtu waa dhinaca anshaxa ganacsatada waana arrin ay u baahan tahay culimadu inay awareness fara badan ka sameeyso oo la fahansiiyo dadkan waxay cunayaan inay tahay xaraam qofku faa'iido waa heli karaa waxaan laakiin yaa laga rabaa inuu ilaaliyo dawladda lagama rabo inay ilaaliso shilin Soomaaliga in wax lagu gato dollarkii la sarrifo hadda intii dawladaha Soomaaliya ay soo jireen kuwii ku meel gaarka iyo mid hadda jirtaba intaba waxaan maqlaynay nin bangiga dhexe ee Soomaaliya madax ka ah bangiga asaga markaa waxba ma qabtamaya bangiga dhexe Soomaaliya waa jira laakiin de wadanka dhan hay'adihii dawliga ahaa iyo shuruucda ku shaqeyn lahaayeen iyo dadkii ka shaqeyn lahaa iyo qaabkii loo control lahaa oo dhan wali ma dhameystirna intay ka dhameystirmayaan marka waxay noqonaysaa mas'uuliyadda inay qaybsadaan ganacsatadu inay qaybsadaan dawladdu inay qaybsadaan culimada diinku inay qaybsadaan waxgaradku qofka anshaxiisa hadduusan isagu ilaahay ka baqayn iyo aakhiradiisa uusan badbaadsanin uusan iska ilaalinayn xaraan askari meel kasta joogo oo controlaya sicirka iyo waxaas ma shaqeyn karayo marka waxaa la rabaa culimadu inay dadka ay wacyigeliyaan ay u sheegaan waxaan ay urursanayaan inay tahay xaraan waxaan ognahay nabiyullaahi shucayb qoomkiisa loo soo diray madyan quraanku markuu ka hadlayo waxay sameyn jireen waxay ahayd miisaanka bay dhimi jireen baa lagu halaagay miisaanka baa lagu halaagay inaga hadda waxa wadan ka dhacaya waa ka dhib badan yahay miisaanka waxaan qiyaasaynaa xilligaas waxay ka ganacsadaan inuusan ahayn lacag adag uusan ahayn daawooyin uusan ahayn shidaal maanta inaga wixii qiimihii qualitygiisii yani elementiya daawadii maaha waa miisaankii wax laga bedelaya yani mawaadii ku jirta wax laga bedelaya shidaalkii maaha mawaad kale lagu soo daray ama shidaal tayadu sirtaa la keenaya raashinkii maaha raashin dhacay ama tayadu sirtaa la keenaya marka miisaanka iyaga khasaariyay ay misan waxay rabaan dulmi inay 2 laab iyo 3 laab kaga gadaan bay rabaan marka waa in dadku ay fahmaan waxa ay cunayaan oo urursanayaan inuu yahay xaraam culimadu ka hadasho dabcan dawladuna waa inay la timaado policy-gii iyo siyaasadii ay ku address gareyn lahayd ama ay ku xalin lahayd azmadan waa inay la timaado waana meeshaas yani dawladda dareenkii dadnimo iyo bini aadamnimo iyo mas'uuliyadeed baa laga leeyahay ilaa hadda oo meesha ay energy-geedii gelisay inay ka hadasho dawlad goboleedyada iyo amniga kan oo ka muhiimsan oo aysan dawlad goboleedna dhismayn haddii dadku baabo ama dadku gaajo u dhinto ama azmadan maaliyadeeda wadamadii waaweyn adduunka control waayo wadanka ku sii xoogaysato amnina ma imaanayo maamul gobolna maamul ka dhismi maayo marka dawladda tan laga dareemi laayahay waxa weeyaan marka laga soo tago hadallo kooban oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay yiraahdeen waxbaan ka qabanayna ilaa hadda commission guddi loo saaray inay soo fiiriyaan ma jirto concrete siyaasad la taaban karo oo dawladdu la timina ma jirto ilaa hadda meesha marka meesha dawladdu ay hakrashada ka muujisay laakiin dawladdu wax badan ma control karto waxaan waxay ku xiran yihiin ganacsatada in ilaahay ka baqaan bay ku xiran tahay culimaduna ay wacyi gelisay ku xiran tahay waxaan maqlayay saaka mar uu hadlayay duqa magaalada Muqdisho Axmed Nuur Tarsan inuu yiri qofkii xamar 100,000 la yimaada wuxuu ka faa'iidayaa 200,000 balse dadka waxaan rabaa inaan u sheego inay jirto tix ama maanso ama gabay qofba siduu rabo uu yaqaan ha u qaato oo uu leeyahay Dr. Sheecali oo Facebook ku jirta waa damcay inaan ereyada qaar intaan ka soo qaato aan maanta halkan ku isticmaalo balse waxaan isri maadaama idan aadan u haysan iska daa marka waxaan dhilaha bal dadku ha fiiriyeen taasna ha akhriyeen hadda waxaanu khadka u furaynaa dadweynaha si ay barnaamijkan noogala qayb qaataan maadaama uu yahay wax dadka badi khuseeya kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba السلام عليكم عبدي ولندن كسو هادليا
cabdi halo asalaamu calaykum calaykum asalaam. runtii waxaad ka hadlaysaan dhaqaalo iyo maaragtay wanaagga soomaaliya ayaad ka hadlaysaan laakiin aniga run ahaantii waxaanu ujeedaa soomaaliya in aan weli levelkaas isaga ah ilaa maanta aanan gaarin soomaali ahaan haddaynu nahay wadankeena muusan gaarin level aan kaga hadalno xagga dhaqaalaha sababtoo ah soomaaliya meel uu system uu ka jiro maahan runtii waana ujeedaa wadanka inuu weli ilaa hadda uu kala daadsan yahay soomaalina haddii la yidhaahdo maaha macnaha soomaali inay tahay muqdisho bas wadan isku xiran maahan soomaali maanta muqdisho haddii la yidhaahdana waa wadanka maanta runtii qaybta maanta ugu liidata soomaaliya haddii la yidhaahdo runtii haddii la yidhaahdo puntland haddii la yidhahdo way kasii liidataa somaliland haddii la yidhahdana way kasii liitaa meel walba oo meesha ugu sii liidatay tahay maanta waxaana ilaa maanta maadaama ay dowlad fiican ay ka jirto soomaaliya cabdi adoo raalliya waxaan u malaynayaa inaad barnaamijka la socotay laakiin se hadafkii ujeedadu dhaqaala ma ahayn dadkiiba waxay la-yihiin waxay wax ku gataan ujeedada iyo hadafka barnaamijka aan ka lahayna waa kaa wey waxaa la waayey shilin soomaaligii oo la la-yahay dadkiina ma wada heli karaan dollar dadkana waa og tahay oo inta badan dad shaqeeyaa ma jiro dadkooda dibadaha jira ayaa u dira marka qofkii hadda $100 loo diraayay waxbay u goyn la-dahay taa in laga hadlo sow sax maaha boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u fiican tahay laakiin taasna waxaa la rabaa in system loo hagaajiyo sababtoo ah system la-aanta ka jirtaa keentay waxaa sababa waxaas yaa noo hagaajinaya marka cabdi systemka lahaa oo laga hadli lahaa ee dawladdu ay maaragtay ay soo jeedin lahayd arrimaha iyaga ah runtii waa waxa la dhamayn karo waa waxa ugu fudud cabdi yaan sugaynaa walaalow oo systemka noo hagaajinaya hadda waxa way annaga iyo dawladda cid kale ma ahan laakiin runtii mas-uuliyaddana waxay saaran tahay dee dadka dawladda ah ma aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi fikirkaaga sidaad barnaamijka noogala qayb qaadatay haye siciid maya cabdi waa runtiis waxaa loo baahan yahay system horta dhibtu hadda azmadan oo ka jirta waxay ku eg tahay koonfur ayay ku eg tahay puntland iyo waxay ku eg tahay iyo south central somaliland way ka la difan tahay inflationka sicir bararka waa isaga mid waayo alaabta imaanaysa somaliland iyo soomaaliya iyo wadanka oo dhan inta badan ama imaaraadka hal meel bay kasoo ka timaadaa ganacsata isku midaa wadanka geysa marka daalar ahaan lacagtay ku geeyaan berbera tii ku geeyaan boosaaso iyo tii ku geeyaan muqdisho waa isku mid laakiin somaliland maadaama ay leedahay currency ka duwan currencyga wadanka intiisa kale wuxuu systemana ka shaqeeyo marka laga soo tago dhibta inflationka iyo sicir bararka iyada saameyn weyn kuma yeelan arrintan oo hadda isbedel weyn kuma imaan oo shilinkii somaliland isbedel weyn kuma imaan oo la taaban karo shilinkii somaliland lama la'a laakiin dadka somaliland laftirkooda waxay ka cabanayaan inuusan waxba u goynayn taas inflationka waa laga siman yahay kow laakiin tan isbedelkii dollarka siyaado kale kusii noqda yacni halka dollar intuu ahaa 2 sano ka hor iyo intuu yahay maanta shilinka somaliland in la fahmi karo baa isbedeshay laakiin kan sanad gudihiis ayuu wuxuu ka tegey 30,000 oo wuxuu tegey 13,000 dhibta halkaasay ka taagan tahay marka waa runtii system la-aan wax ma shaqeynaya assalaamu calaykum walaal magacaaga noo sheeg burca magaalada burca gobolka togdheer axmed maxamed bunkaal baa la yidhaahdaa haye maxamed kusoo dhawo walaalo barnaamijka adaa kolley hadda jooga meeshii adaana dadka ugu waroon balkeen marka ugu horeysa horta soomaaliya marka laga hadlayo soomaaliya dee lixdankiiba koob iyo sagaasankiiba ay kala booday jamhuuriyadda halkan ka jirta la yidhahdo somalilandna waxa weeye shacbigeeda iyo dadkeedu waxay diyaar u yihiin in maxaa gooni istaaggeeda maxamed may maqashaa maxamed asalaamu calaykum asalaamu calaykum maxamed waa muqadas maxamed somalilandnimadu maxamedow marka laga hadlayo anagu aad iyo aad baa laga naxdaa marka laleeyahay soomaaliya sababtoo soomaaliya wax isugu jiraa maanta ma jiraan maxamed may maqashaa horta kuma hadlaysaa kama aana hadlaynin soomaaliya iyo somaliland iyo koonfur iyo galbeed iyo kama aana hadlaynin waxaanu ka hadlaynay maciishada maanta dadka soomaaliyeed meelay joogtaba dhibta ku haysa iyo dadka ganacsatada ah oo dhibtaas ka faa'iidaysanaya taasaanu ka hadlaynay siyaasad ma ahayn hadda laakiin kolleyba marka laga aada iyo aad buu umahadsan yahay kaasina maxamed buu ahaa oo magaalada burca gobolka togdheer sicid markaanu usoo noqono runtii culayskan wuxuu ku dhacayaa dadka danyarta ah ee masaakiinta ah ee soomaaliyeed meeshay rabaan baa joogaan
faa'iidada inta badanna waxaa helaysaa ganacsataduna hadda inta badan waxaa la yidhahdaa ninka ganacsi markuu ku jiro waxaa u muuqda faa'iido oo keliya wax kaloo u muuqda ma jiraan marka ganacsatada seebaad leedahay waa loo xadidi karaa oo waxay noqon karaan wax la kontrolo kelmadda control oo askari ah meesha ka saar waxaa la rabaa in dadka la kontrolo maskaxdooda ilaaliya maya waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan in dadka la dhiso damiirkooda ay noqdaan qof bini aadan ah ilaahay ka xishoonaya aakhira ka fakeraya sharciguna at the top of that markaasuu shaqaynaya laakiin wadanka meel kasta askari lama dhigi karo ganacsatada controla marka waxaa muhiim ah in dadka qiyamkooda la dhiso damiirkooda la dhiso ay dareemaan waxay samaynayaan inuu yahay khalad lacagtay ka faa'iidayaanna aysan at the end of the day aakhira iyo adduuntoona wax tari doonin tala raba inay fahmaan waa taas ama shuruucda iyo nidaamku markaas ka bacdi buu sii shaqeeya oo qofkii ama 2 ama 10 markaas ficnaan weyda buu sharcigu qaban karaa laakiin saynu hadda la socono dawladdu dhul yar bay kontroshaa intay kontroshana awooday ku kontrosha male dekeday wax kala soo degaan garoomada yurada wax kala soo degaan kala yimaadaan seen loo kontroli karin waxaanu qaadanaynaa cabdi cismaan oo London ka soo hadlaya cabdi barnaamijka waa la socotay baan filayaa barnaamij siyaasadeed ma aha ka qayb qaado insha Allah cabdi aadaan ku sugaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لو waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka wuxuuna fikirkiisu yahay dawladihii hore waxay ahaan isaga meel gaar dawladan hadda wax dhaqaale oo wali ay samaysatay ma laha marka waxa problem ka tagay waa dadka ganacsatada ah oo ayagoo Soomaaliya jooga oo Soomaaliya aan shilinkii Soomaaliga rabin ee dhahaya maqaayada dadka qabaysa intaasoo dollar aan kaaga baahanaysi aye marka dadkaas haddaan dalka iyo dadka laga qaban anu waxaan qabaa wax la isu keeni karo in aan baaba laga dhaxla moogiye wax horumar inaan laga gaarin dadka ganacsatada haddaan tallaabo laga qaadin oo mataqaanaa shilinkii Soomaaliga inta ka tagayba dollar bas raba marka shilinkii goormuu qiimo yeelanaya shilinkii marka insha Allah taala waxa fikirkayga ku soo koobaya dadka ganacsatada waxa wax qaribaya dadkaasna iimaanka Allah geliyaan ilaahay waa ka bax ma aad iyo aad baa u mahadsan tahay ayaga iyo annagaba ilaahay iimaanka nagu sugo Sicid ma dhici kartaa ganacsatada Soomaaliyeed hadalkayga hadayna way ku jirtay in lagu ilaaliyo inay isticmaalaan ninka dukaan kale iyo ninka maqaayada leh inuu shilinkii Soomaaliga ka qaato oo uusan kugu xujeyn inuu dollar ka qaato su'aashu waxay dib ugu laabanaysaa waa maxay lacag maxaa loo isticmaalaa lacag shiino lacagta dadka laguma khasbo lacagtu waa inay kalsooni ku qabaan dadku iyaga lacagtay kalsoonida ku qabaan bay lacag ahaan u isticmaalayaan lacagtu laba shaqo qabataa in wax lagu gato medium of exchange in wax lagu gato iyo in wax lagu kaydsado marka lacagta wax lagu gadanayo iyo lacagta wax lagu kaydsanayo waxay noqonaysaa dadku tay u yaqaaneen lacag hadday dadku kalsoonida ku qabeen shilin Soomaaliga oo meesha ka baxo laguma khasbi karo wax ilaa ay dawladdu la timaado policy keenaysa dadku inay ku qancaan marka meesha uu walaalkeen Cabdi Cismaan uu ka didayo dollarka anigu waxaan badhihi lahaa xalka hadda ugu dhow maadaama siyaasad ahaan aan lagu qanacsanayn wax badan dawladdu wali aysan institutionska iyo systemska waxa badan jirin la ogyahay in si xun loo maamulayo la ogyahay lacag hore la soo sameeysan jiray waxa ka faa'iideynaysan ahay shakhsiyaad baa ka faa'iidi jiray oo sarrifan jiray ganacsatada soo samaystay iyo nidaamkaas wada samaystay oo ka faa'iidi jiray dadka caadiga inflation bay ku abuuri jirtay iyo dhib kale ku abuuri jirtay ama iba fiicnaan lahayd dollarization in laga guuro shilin Soomaaliga oo loo guuro dollar shilin Soomaaliga soo identity ma identity wuu yahay laakiin waa identity institutionska iyo wixii ilaalin lahaa aysan hadda shaqaynayn ilaa inta ay ka shaqaynayaan oo yani waa hadhowtu way fududahay hadda waxaa jirta 2009 in mar la soo lacag la sameeyay oo hadda taala Suudaan oo la rabay in la bedelo shilin Soomaaliga hore la bedelo haddii aadan aqoon quantity-ga shilin Soomaaliga ee wadanka yaala lacag ma bedeli kartid haddii aadan wadanka dhan aad u controlin lacag ma bedeli kartid
maxaa maanta lacag la yidhaahdaa nin walba bidbacad intuu meel la tegey oo gobolkiisa la fariistay buu wuxuu rabo daabacday yani definition shilin soomaali oo laysla fahmi karo maanta ma jiro marka waxaasoo dhan si looga baxo in la qaato hal sano ama 2 sano oo dollarization dollarizationku wuxuu keenayaa hadda dowladda mushaharkeeda waxay ku bixisaa dollar canshuurtana waxay ku qaadaa dollar shilin soomaaliga waxaa loo isticmaalaa oo keliya sarif exchange baa loo isticmaalaa maadaama aan 20b iyo 30b iyo 10b aan la helin lacag sentiyadii aan maadaama la helin marka dowladdu hadday hadda facilitate garayso in la helo sarif mee dollar oo kooban sanad gudihiis way fududaan waxaan isleeyahay hadda way fududahay in lacag cusub la keeno wadanka ama laga guuro hadda yani waxaa muhiim ah dadku inay qancaan oo kalsoon ninka ganacsadaa inuu kalsooni ku qabo qofka yani maanta haddii maanta aad nin $100 adoo xamar jooga aad koob shaha ka cabtid aad u dhiibtid oo sab bedelka ku siiyo shilin soomaali qaadan maysid waayo waxay og tahay sarifka inuusan meesha joogin doolarkaaga doolar isiiba dhahaysa waayo kalsoonida waxaas ku qabtaa doolarka kuma qabto shilin soomaaliga ilaa la helo lacagta laguma kalsoonayo dowladda iyo siyaasadeeda lagu kalsoon yahay marka la helo dowlad aamina ee transparentia nidaam leh institutionadeena shaqaynayaan bangiga dhexe shaqaynayo hay-adihii lacagta oo controlaya iyo wixii oo dhami ay jiraan marketka shaqaynaya uu jiro dadku kalsooni kuma qabayaan shilin soomaaliga marka dib hadda looga cararo dollarka male bal wadamo badan oo dhibtaan oo kale la kulmay waxay galeen marxalad dollarization ay lacag kale isticmaaleen khasamayna dollar isticmaalaan lacag kale isticmaaleen kadibna waxay u soo laabteen lacagtoodii marka inaga waa identity shilin soomaaligu intii la ilaalin karana waa in la ilaaliyo laakiin waxaa muhiima in la helo dad lagu yaqaano amni dad lagu yaqaano cadaalad kalsooni lagu qabo maanta bangiga dhexe haddaad lacag dhigatid ama aad maba jiraan bangiyo fara badan hadda lacag la dhigto kalsooni intee lag baa ku qabtaa lacagtaada inaa heli doontid berrito amin assalaamu calaykum amin oo khadka telefonka ku jira ireline amin haye asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aad ayaan uga helay barnaamijkan runtii aad iyo aad waa ka xumahay khadkii ayaa amiin ka go-ay sicid dadku inta badan marka hadda aan marka eedeynayna ganacsatada dowladda hadday canshuur ku qaadanayso ayadii mishaar ku bixinayso ganacsatada maxaa lagu haystaa marka hadda arrintaan kuu sheegayno waxaa dowladdu asbaabta ugu qaadan weyday shilin soomaaligii canshuurtii mushaar uga bixin weyday laftigeedaan mararka qaarkood kalsooni ku qabin waayo dowladdu canshuur badan ma qaado dhaqaalaha heshaa oo dhamme waa caawimadana dollar baa lagu siiyaa marka mararka qaarkood waxay bixin kartaaba waa dollar iyadaanba wax kale bixin karin maadaama wax kale ayaan haynin iyadaanba wax kale hayn asalaamu calaykum xalwo oo dalka denmark naga soo wacaysa xalwo haye asalaamu calaykum walaal calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaashay walaal waxa weeye halkan waan ujeedaa barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay xogdoon waa lacag ku saabsan problemka lacagta ka taagan soomaaliya marka waa aniga ra'yigayga waxay la tahay sida wax looga qaban karo dhibaatadan lacagta inay tahay dawladdu inay soo daabacdo lacag haye waayo ma aan maqlin wax lacag oo dawladdu ay keentay intii 3 bilood oo hadda ay xukuumadda haysay haye marka dawladdu waa inay lacag soo daabacdo si lacagtan doolarkaana loo xakameeyo oo markaa hadday laga maarmaayo laba xireeyo dibgeedaba waayo mujtamac dhan oo lacagtoodii aan isticmaalaynin oo danyartii iyo lagaga gadanayo dollar oo iyagoo oo dhan adabta ku noqday lacag dollar waxay leedahay problemkeeda marka adigu aragtidaada hadda waxaa weeye xalwo in dawladdu ay lacag soo daabacato si dawladdu way isu ku bedelo khasbantahay weliba aragti maahane waxa weeyaan waa wax waajibkeeda inay lacag wadanka keento waayo maciishadii sida hadda dadkii iga horreeyay ka maqlayay maciishadii meesheedii bay taagan tahay oo dadkii dhibaatay qabaanin waxa weeyaan wax sixirkii lama dhimin maciishada dawladdu waa inay wada kontaroosho maciishadii iyo lacagtii ay isku kontaroosho waa inay isbaafgareeyaan lacagta wadanka soo gelaysa maciishada wadanka soo gelaysa markaas ay wixii meel isugu keento oo dadkii masaakiinta ahaayo awalba dee 21 sano problem kusoo jiray waa mahadsantahay haddana iyagoo dawlad leh aan dawladda waxba u qabanaynin oo maciishadii ka controleynin oo nimanka bacimisirka ah oo dee calooshooda u shaqaysanayo oon
sida hadda wadaadka meesha fadhiya uu sheegayay aan ninna u naxaynin dee naxaynta soomaaliya wayba ka dhamaatay naxariinada meesha loo telefooniyay oo malayn maayo aad iyo aad xalwa waa mahadsan tahay marka aragtida xalwo ma xuma laakiin waa xal ku meel gaar ah xal fog waa in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka iyo systemka iyo dowladda ay kalsooni ku qabaan oo qofku og yahay lacagta qiimaheedu inuu noqon doono qiimo istaagan constant aan aad isu bedelayn oo fluctuation marna cirkaan tegayn marna dhulkaan tegayn nidaam institutionada ee la sameeyo haddii dowladdu ay lacag soo samaysanayso waa marka ugu fiicneed ay lacag samaysan lahayd maanta oo hadday dowladdu lacag soo samaysto way ka faa'iidi kartaaba laakiin cilladdu waxay tahay wuxuu noqonayaa xal ku meel gaar ah waxaana ka faa'iidaya shakhsiyaad waayo haddaynu qiyaasno 2006 ilaa maanta dadka qaarkiis waxay sheegaan ilaa dhowr iyo 30 jeer in nidaamyadii isbedbedelay ay mar walba lacaga soo sameeyeen mar walba inay sicir barar soo kordhiyaan iyo dhib hor leh maahaane xal ma keenin marka in hadda shilin Soomaaliya la daabaco iyadaan la keenin dowladdu aysan la imaan systemka iyo nidaamka dowladnimo ay waxaan ku shaqayn lahayd يعني waxay la mid noqonaysaa oo kaliya adoo yiri dabkiiba waxaan ku soo shubayaa bensiin xal waxay keenaysaa asbuuciyo iyo bilo مثلا way hadda lacag quantity-ga dollarka wadanka taala dawladdu ma xadidi karto dawladdu السلام عليكم يحيى وعليكم السلام ورحمة الله يحيى كلي waxaan filayaa inaad nala socotay waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd maciishada iyo shilin Soomaaliga oo la yahay dadkina culays ku keentay وعليكم السلام حاجي walaalow taleefanka igala soco Yaxya adigoo raaliya walaalow سيف عن ديار وكل صلاة haye soo dhiiba aragtiya su'aal والله waxaan qabaa horta waa sax oo wadan walba wuxuu leeyahay lacag asiga oo qaasa oo wadan walba isticmaalo laakiin dollarka lacag kale kala duwan waa lacag kor ka yimaada marka waa qasab in la helo lacag shilin Soomaaliya oo wadanka iyo dadka anfacada oo control qofka baadiyaha ka keenaysa qudaarta qofka hilibka keenaysa qofka qoryaha keenaysa darro ma iibsan shilin wax ku gataan wadan kulliye marka qaas hadaan leeyahay marka wax socona midda labaad lacagta hadda shilin Soomaaliya wadanka taalamaha lacag controlan qof walba iska soo sii warqada ee farka la isku samaysana dawladda badana hadii tirana ma bedeli karto marka dawladda wadanka controlsho iyo lacag macnaha jango aan oo wadanku uu leeyahay canshuurta lagu qaado oo wax lagu kala bedelo kale in la helo aad important u tahay ma faham Yaxya usoo moodi dawladda culays ayan qaadi karin annagoo tabarteedo inaanu saareyno markaanu leenahay dawladda wadanka oo dhan wada control waa qasab ma hadda waa sax ba way jirtaa macnaha culays qasab la saaraa ma jiro waa sax laakiin waa in la helo horta amni waa in la helo control dawladeed waa qasab taas waayo hadii la yiraahdo wala bedela hadii xataa maanta la yiraahdo ma la bedeli karo waayo nin walba iska soo suusana warqadi nin walba mashiin iska soo hindiyo ka soo qaatay jeena laga soo qaatay marka ma la bedeli karo waayo hadii maanta hal trillion kan berrin kan 4 trillion ma la bedeli karo waa dhibaato marka lacagta midda hadda taal oo shilin Soomaaliya waa in laga guuro lacag lambaris le oo le wax kasta le in la helo waayo oo dadka dhan ay ku qanci karaan laakiin midda tan cid bedeli karta ma jirto cid waa bedela karaan aad iyo aad baad Yaxya u mahadsan tahay Yaxya waa runtiis laakiin xagee wax laga bilaabaya wax laga bilaabaya dawladdu inay sameyso horta policy-gii lacagaha Soomaaliya waa inay sameyso istaraatiijiyada la timaado waa inay institutionadii waxaan shaqadan qaban lahaa hadday jiraan la xoojiyo haddaysan jirin la sameeyo institutiono fara badan baa loo baahan yahay lacagaha qabtay shaqo ku leh maaha central bank ee kaliya marka institutionada la sameeyo ka bacdi ayay waxay noqonaysaa consultation fara badan la sameeyo Soomaaliya dad badan oo experts ay leedahay waxaan yaqaano hay'adaha international iyo bunuug caalami iyo meel academic oo yaqaano ka shaqeeya marka kadib bay noqonaysaa in la bilaabo hayaan looga guurayo lacagtan iyo azmadan oo looga guurayo nidaam kale laakiin waxa kale oo dhan waxay noqonayaan xal dhow halka dhowna hadii shilin Soomaaliya la soo sameeyo ama la dhaho lacag cusub baa la keenaya oo tii hore la bedelaya iyadaan la garanayn quantity-ga lacagta wadanka taala sida walaalkeen sheegayna dhici karto qof walba inuu mashiin intuu guriga ka iska sameeyo si uu bedesho iyadoo wadanka dhan la xukumin oo adduunka marka lacagaha la bedelayo waxa laga yaabaa in 24 hours gudahood lagu bedelo lacagaha oo dhan meel kasta la gubo lacagihii inaga system ma jiro dawladda meel lama dhul badan maysan controlin wadanka dhan iskuma xirna kalsoonidii iyo qanaacadii ma jirto marka shaqaynaysa fashil bay keenaysaa hadii shilin Soomaaliya hadda far badan la keenana oo hadda dawladdu shilin Soomaaliya sameynayso marka ay ka faa'iideyso waayo
si warqadda loo soo daabaco warqadda iyo daabacadda lacag joogta inta badan waxaa la qiyaasaa 0.03 centi bay ku kacdaa in lasoo daabaco 1,000 shilin warqadiisa iyo khadiisa marka markii hore oo $1 oo ahaa 30,000 qofka dhaha lacag baan soo daabacaya kama faa'iidi karo ku khasaaray laakiin hadda day soo daabacato ka faa'iideysa dawladdu inkastoo islaam ahaan lacag in laga faa'iido aysan ribo noqonayso laakiin waxaa soo dhan waxaa ka horeeya policy iyo systemka in la helaa ka horeeya Cabdiraxmaan assalaamu calaykum Faisal oo naga soo wacaya Norway السلام عليكم والله فكركيga hadii aan ka hadlo dhabta ah horta hore dawladdu inay lacag soo samayso anigu fakarka ma qabo waxa weeye dawladdu waxa weeye systemka siyaasadeed ee hadda maanta taagan inay ganacsatadana dawladdu ka soo horjeesato waa dawlad yar oo ordara ma baahna waxa weeye shirkadaha ganacsiga Soomaaliya ka shaqeeya waa la yaqaanaa kambaniyo waaweyn baa ka shaqeeya shirkado waaweyn kuwa raashinka keena kuwa shidaalka keena kuwa waa lacagta kuwana waa telefoonada in shirkadaha waaweyn arrintan dawladdu u soo bandhigto lacagta Soomaaliga laga guuro lacagta dollarka in loo guuro ama lacagta Soomaaliga inta taala si loo xalin lahaa dawladdu oo xaliso shirkadahaasna ay ku wareejiso raashinimada say u sameeyaan system iyadu lacageed maadaama shirkadaha waaweyn xawalaadaha ka furan yihiin bangaariga inay ka dhigaan una aqoonsadaan shirkadaha waaweyn xawalaadaha bangaari ahaan in loo aqoonsado marka sida la aligeed waxa weeye dawladdu khasaaradan hadda iyo dadkan xabaadaya hadii hawshan kambaniyo waaweyn ay yimaadaan raashimadii bay jeminayaan ayagaana kambaniyadii la siiyay elsiyada la siiyayna waxa weeye waxay sameynayaan tartan Britain ganacsi bay sameynayaan marka ummadii masaakiinta ahayd oo dhulta lagu qabanayay way arrintii way ka bedelaanaysaa jawigii waa dhamaystir hadalkayga aad iyo aad baad u mahadsantahay fikradaada qayimka ood Faisal oo nagu soo biirisay Saciid Faisal waa aad bay fikradiisu qurux badan tahay laakiin hal cilad bay leedahay Soomaaliya ganacsigeedu hadda maaha ganacsi xor ah waa monopoly ama monopsony inta badan ama hal shirkad baa controlsha ama laba shirkadood saddex shirkadood baa controla labada ama saddexda shirkadood oo controlana inta badan way wada shaqeeyaan oo price-ka way wada gooyaan telecommunication way wada shaqeeyaan tartan dhabihi kama dhaxeeyo xawaaladaha way wada shaqeeyaan tartan dhabihi kama dhaxeeyo sidaas oo kale shirkadaha keena shidaalka kuwa keena raashinka kuwa keena cuntooyinka kala duwan kuwa keena qalabka dhismaha way wada shaqeeyaan marka in a way Soomaaliya waa monopoly assalaamu calaykum Sheekh Daahir Xamar السلام عليكم عليكم السلام كسو دو شيخ داهر جيل ويه او انفلايو سعيدني سي فيعن اسو يقانان ما رونهان اسمه قرينا عمريلي انا داهر شيخ داهر جيل ما هي داهر جيل لو قربان هيا سو دا ولا وركاغا marka oo kuma gaadheer cagma dhigay هيا cagma dhiga soo warkaaga soo dhiibo waxaan soo dhiibanayaa waxa weeye waxa jida hadda xamar xanta socota in qolo walo lacag soo daabacatayba ay dawladda hadii lacag cusub la keeno lacag hore loogu bedelo haye sidee wadanka u hagaagaya hadii nin walba waxa uu soo daabacday ee isagu uu soo baysgaraystay uu ku doonay lacag rura taasoo meesha jida marka taa ku xisaabtaba marka hore inta lacag laga hadlay kii garowe ku daabacday waa doonaya kii boosaaso ku daabacday lacag run u doonaya kii gaalkacyo ku waa doonaya kii xamar ku daabacday waa doonaya kii kenya kusoo daabacday lacag run u doonaya dawladdu intay qarin doontaa may laakiin daahiro haddii si kale aan u dhigno intaasoo dhan dadkii bay u tashanayaan dadkii ma in lagu daawadaa marka xalku waxa uu ku jira in si qaran hab qaran loo fariisto haye halkaa go-aan laga qaato nin walba lacag buu soo bandhigtay buu soo daabacday uu lacag ku doonaya rura ku qaado aad iyo aad baad u mahadsan tahay daahir geelle cagma dhige waana ka xunahay khaladkii aanu magacaaga kolley ma aanan khaldin laakiin qof kale aanu ku mudnay raalli baad ka ahaanaysaa Saciid habka qaran oo uu sheegay daahir waxay noqonaysaa dawladdu inay ka faa'iideysato dadka aqoonta leh ee Soomaalida ah ee caalamka jooga
bangiyada dhexe Soomaaliya ka shaqeyn jiray institutionada weyn caalamka ka shaqeeya lala tashado iyaga haddii la isku dayo lacagaha hadda shilin Soomaaliga in la bedelo catastrophe waxay ku dhamaan doontaa masiibo kale maaliyadeed bay ku dhamaan doontaa iyadaan la aqoon lacagta shilin Soomaaliga wadanka taala quantity-geeda marka la yaqaano quantity-ga shilin Soomaaliga wadanka yaala oo lacag cusub la keeno rate baa la sameyn karaa lacagta cusub iyo lacagta hore la isugu bedelo laakiin haddii shilin Soomaaliga wadanka yaqaan ma 100 bilyan ba ma intaasoo trilyan ba aan la aqoon sida la sheegayana meel kasta ninkii madbacdu taalay uu noqonayo inuu hadda wuxuu iska daabacdo rate lama sameyn karo marka waxay abuuri doontaa oo kaliya inflation iyo jahwareer iyo fashil kale abuuri doontaa iyo dadkii masaakiinta awalba dhibana oo la sii dhibo waa meesha aan leeyahay fikirka ah waa in la galo xilli dollarization 1 year ama 2 sano oo dollarization oo shilin Soomaaliga dhanba laga guuro hadhowta marka dawladdu inay lacag cusub la timaado iyadana markay awood yeelato institutionadii dhisato oo xoogaysato markaana lacagtii la hirgeliyo cusbayd oo la dhaho reedkeeda dollarku intaasoo noqon doonaa dawladdu lacag haddii aysan dawladdu lahayn reserve hard currency lacag ma keen lacag kayd dhaqaale lacag lama imaan karto haddaysan nidaamkii dawliga uusan shaqaynayn oo lacagta dibadda ka imaada aysan bangiyada wadanka soo marin oo dhaqaalihii wadanka lacagta hard currency-ga soo gelisay ka baxaysa aan loogeyn dawladdu waxba ma samayn karto marka intaasoo dhamina waqti bay qaadanaysaa haddii iyadoo waxaasoo dhan aan la samayn hadda lagu degdego oo la dhaho shilin Soomaali cusub baa la keenaya ama kii mid baa la bedelaya waxay noqonaysaa oo kaliya in dibti looga sii daro waxaan rajaynayaa inay noqoto hooyo Soomaaliyeed oo London naga soo wacayso qofkii ugu dambeeyay oo aan khadka telefonka inay noqotaan rajaynayaa haye hooyo Soomaaliyeed waa mahadsantahay walaalo ku jira haye aragti iyo su'aal labadaba ma maqashaa walaal waa ku maqlaa walaal adaan ku sugaynaa horta arrintan waa arrin dhib badan aniga ila tahay waa ku maqlayaa imay maqlaysid soco adun baan ku sugaynaa iska wado arrintan horta aniga waxay ila tahay arrin aada u dhib badan inay tahay hadda waktiga lagu jira dawladii aan tabar lahayn ganacsatadii iyo aada moodid dadka inay barashar faa-ida ku hayso oo aysan dadka u naxariisanaynin laakiin arrinta hadda wiilkan wadaadka walaalkay meesha fadhiya uu sheegay oo ah in dollar loo guuro waxay ila tahay qof aqoonsigiisii xooray oo aqoonsi kale qof kala qaatay ila egtahay aniga waana arrin aada u dhib badan oo hadhow dadka si looga fajiya ay adkaanayso marka waxay ila tahay dawladdu inay bolancy raadiso bolancy dadka weliba bolancy baarlamaanka inuu dejiyo bolancy wadanka inaan laga isticmaalin lacagta uu leeyahay maaha lacag kale whatever waxay rabtaa kusoo dadka alaabtu waan ognahay annaga waxaynu ku noolahay dad productiga banaanka ka imaadaa laakiin waa inay dadka dawladda ay baarlamaanka u dejiyaan sharci wadanka gudihiisa inaan laga isticmaalin lacag qalaad haddii aan u noqdo meesha la yidhi dawladdu ma xukunto meelo badan dadka Soomaalida way isku wada dan way isku wada xiran yihiin waxaan aaminsanahay maamulo yaroo ka jira meelaha hadday dawladda u bandhigto u gudbiso oo dad wacyigelin oo gudbiso tiraado saha la yeelo wala wada yeelaya because dhibaatada weyna wada haysata gobolada dhan way meel aysan haysano Soomaaliya kamid ma ahan marka ana waxay la tahay horta arrintan ka guurka Soomaaliya laga guuro waa arrin aad aniga ila fodxun oo hadhowna dadka si looga fajiyo adkaanayso waxaan noqonaynaa ajnabi caadiya waxay ka mid tahay adoo calankii tuudhay oo kale adoo lacagta Soomaaliga tuudhay aad iyo aad baad umahadsan tahay hooyo Soomaaliyeed waqtiga ayaad ciriiri nagu intaa ka badan ee kuma siin karno lacagta oo la tuuraa waa iyadoo calankii la tuuray sicid haye maya maaha lacagta oo la tuuray in calankii la tuuray lacagtan oo la bedelo hadda lacagtan dawladda ma kontrolsho ganacsataa kontrolsha iyagaa soo samaysta iyagaa iibgeeya iyagaa dadka marna cunaha ku dhiga marna inflation bay ku diraan iyo sicir barar marka deflation iyo lacagta inay qiimaheeda ridaan bay ku diraan iyagaa dadka nafta ka qabta azmada Soomaaliya waa azma Soomaali assalaamu calaykum cabdi fataax qaahiro maadaama meel fogaad ka soo hadlaysid taye assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal horta hal su-aalna waa weydiinahay sheekhu kula fadhiyo oo horta ma la ogaan karaa lacagta shilin Soomaaliga ee dalka Soomaaliya taalo weliba qaasatan suuqa bakaaraha lacagta shilin Soomaaliga ay taalo haye sifan ya waa garanay wado haye mid
midaas horta waxaan ku leeyahay horta lacagta suuqa bakaaraha taala in la ogaa karay in kale midan kale dhibaatada jirta horta lacag cusub oo loo baahan yahay ma ahan dhibaatada 100% jirto horta lacagta inta dhamaato oo dadweynaha dhexdooda ku dhamaato iyo inta taalo oo la kareeyo inta taala 80% badan oo meeshaas waxaa ka baxaysa inaysan lacagti dhamaanin oo loo baahnayn lacag cusub in la keeno laakiin ay tahay lacag taalo suuqa bakaaraha iyo weliba xaafadaha oo magaalada Muqdisho taala sababtoo ah leen ganacsatadaas ka shaqeyso waa ganacsatada waaweyn soo degsato iyo dad u shaqeeyo sariflayaal weliba dadka sariflaha nin ku aan baxay oo sarifla kaligiis ah ma jiro sababtoo ah wuxuu kaliya uu hoostaga una shaqeeyaa nin ganacsada ama shirkad ganacsataha oo alaab soo dejisa oo Dubai iyo Jeenaha iyo dhulkaas ka keento oo ganacsatada waaweyn ah oo wuxuu u yahay sarifle ay qaasatan wuxuuna qaabku ayagu wax ugu sarifana waxay tahay sida ay u baahan yihiin qaab kale oo asaga ku macaash gareeya hadhowna waxay dhahaan markii ay soo badato ay baahidan doolarka lacagta doolarka ay soo badato qaarna ayaga ka xariisto qaarna asaga waxay dhahaan xareeso saad adiga biri uga macaashto laakiin Cabdi Fataax hadda shilin Soomaaliga baa la leeyahay Cabdi Fataax halka way meesho suuq dadkii haysan dadka shacabkii haysan ee ganacsatada haysata ganacsatada weliba kuwa waaweyn baqaaradooda si gaar ah ugu xariisteen kuwa sariflayaasha ahna ayagana si gooniyo u xariisteen waa mahadsantahay Cabdi Fataax Siciid ay wado marka laga hadlayo siyaasad dhaqaale ujeedadeedu waa in dadku ay ku noolaadaan nolol tayo leh si dadku ay ugu noolaadaan nolol tayo leh waxaa muhiim ah in la qaado tallaabo kasta oo dadka gaarsiinaysa nolol tayo leh haddii ay noqoto tallaabadaas in laga guuro shilin Soomaaliga oo loo guuro dollar dhib male waayo waxa la badbaadinayaa waa naf dhimanaysa waxa la badbaadinayaa waa dad masaakiin aan awood lahayn waxa la badbaadinayaa waa dhaqaale ummadeed oo dad masaakiin oo maalinba intii niman shilin Soomaali warqada soo daabacdaan ay lacagtoodii ay si xaq darro ku qaadanayaan marna ay suuqi ku soo badinayaan marna ay suuqi ka yareynayaan labada jeerba dadka way dilayaan marka ujeedadu marka la leeyahay laga guuro shilin Soomaaliga loo guuro dollar waa in dadku ay helaan nolol degan stable ah ay ku noolaadaan tayana la weyna helaan si taas loo gaarana wax kasto ay tahay in la sameeyo khasab ay noqonaysaa marka in shilin Soomaaliga laga guuro oo loo guuro dollarization waqti gaaban micnaheedu ma in calankii la turay micnaheedu waa si dadkeena u badbaadsanaa ama gaajada u dhimanaya bay noqonaysaa muhiimadu ma ahan ganacsatada la iska dhiciyo ganacsatadu bacdallahi wax weyn bay u qabteen ummadan Soomaaliyeed 22 sano u dambeysay Soomaaliya dadka magaca Soomaalida sidee oo sharafta u yeelay oo ay ka dhiban weeyday waa ganacsato wax kasta dadka qayb qaata waa ganacsato laakiin ganacsatadu waa bini aadanka iyo shaydaankuna wada nool yihiin waxay u baahan yihiin in la xoojiyo qulubtoodii la nadiifiyo khayr loo sheego dhinaca wanaaga wax laga tuso ganacsatadu ma ceebaysna qaar kamid ah ceebaysan waa run markadka Soomaaliya maaha markad furan waa markad ay kontrolaan sharikaadkuna way wada shaqaystaan sicirkana way dejiyaan xawaaladuhu tusaale ahaan sicirka wada dejiyaan oo hadda xawaalad maanta intay timaado sicirka wax ka bedeli kartaa ma jirto shidaalku waa saas oo kale raashinku waa saas oo kale telefoonadu waa saas oo kale السلام عليكم محمد ونوروي نجلس وحريري محمد وكجو أي محمد خد تلفون مركا عن سي ودنو شركاتكو يعني وحكد حيا نوعبا وذا الشقين بكد حيس أو مونوبولي سيدات بيونقمان marka waa in dadka la fahansiiyo monopoly marka alla monopolygu waa suuqa inuu control hal qof ama group shirkadaha oo isu tagay oo price kumida la dejiyay cid kalena aan loo ogoleyn price-koodana ay ilaashadaan kii ka baxana lala dagaalamayo oo la isugu tagayo marka waa in halkan hadda waxa loo baahayaa dowrkii culimada loo baahayaa oo in dadka horta diiniya waxaanay qaabkan ganacsiga ay sameynayaan inuu yahay xaram in la fahansiyaa muhiim noqonaysa kow dowladda mid kamid asbaabta keentay dadku hadda in yani aan leeyahay laga guuro dowladda kalsoonidii baan jirin meesha si kalsooni ay u timaado dowladdu waxay u baahan tahay time ay ku dhisto institutionno ay ku diyaariso shuruuc ay ku soo saarto dad kaadir ah dowladdii nidaamkii dowliga oo shaqeynaya oo dhan in la helo wax bil iyo asbuuc iyo 2 bilood iyo 6 bilood ay ku imaanayeen ma in la helo dad technocrat waxaan aqoon u leh in la helo mechanismkii dadkan lagu control lahaay wada shaqeyn lahayn wixii oo dhan in la abuuriyo yani dowladda Soomaaliya maanta
tirada lacagta ma leh basic statistics inflationka iyo sicir bararka waxyaabaha asaasiyaadka nolosha ka dhimanaysa warka hayn oo dadka caadiga la mid yihiin way institutionadii dawladda shaqadan qaban lahayd oo dhan ma jiraan marka in la dhiso institutionadii oo dhan in la diyaariyo shuruucdii in la dhiso shuruucdii صح way khadkana qaadanayna assalaamu calaykum cabdi xirsi oo naga soo wacay Sweden magaalada Gothenburg وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن واكو سلامي السلام الله عليك مرتين كنا فضيل السعيد لبدي نبا أشياء قضايا وحي تاعي مادام السعيد مركي هورا وكهل لي أرنتان موبايل كا لوئي سنيو معيشة راعية لودن كي محو فمين كلا أقول له in dhaqaalaha maaragtay ama shilin soomaaligii gebigiisa la waayay sida aniga qabo shilin soomaaligii wadanka yaalayna uu shilin soomaali yar uu ahaa gartay marka macquul miyay noqonaysaa maadaama dadka bixmushtarka ay lacagtii shilin soomaaliga ayagu baqaarada ugu jiraan dawladdan hadda dhalatayna aysan awood u lahayn inay samayso inay soo daabacdo lacag cusub waqti badan bay u baahnaan kartaa lacagta cusub la soo daabacayo marka macquul ma noqon kartaa inaan Siciid weydiiyo lacagtan mobileka lagu iibinayo in ay keenayso dhibaatada waayahay khadka ku jira ka bixin Siciid ha kaaga jawaabay haddii wax kale ay jiraan saa is weydiisaan cabdi waa mahadsan yahay cabdiyow lacagta mobilku waxba kama duwana siday u shaqeeyaan kaararkan inuu ka isticmaalo Yurub waxba kama shaqeeyaan hadda Yurub inteeda badan way sii yaraanaysaa qofku inuu lacag jeebka ku qaato qofka walba kaar buu wataa waxa ugu yar iyo waxa ugu badan oo gadanaya kaarka ku isticmaalaa marka mobilku wuxuu u taagan yahay Soomaaliya meesha credit kaararka inuu isticmaalo ama debit kaarka inuu ka joogaan Yurub iyo galbeedka waxa kaliya isbedelay waxa weeyaan halkan waxa ka jira shuruuc iyo institutionno shaqeynaya shirkadka leh telefoonada kaararka bangiyada leh way yaqaanaan isticmaalka kaararka iyo saameynta ku yeelanayaan dhaqaalaha iyo mujtamaca dawladdu marka waxay samaysay mechanism lagu minimize gareeyo dhibta ay u geysan karaan mujtamaca iyo dhaqaalaha wadanka inaga dhibta jirta waxay tahay shirkadka isticmaala mobilka ba samayn daraasado lagu fiirinayo saameynta ku yeelan karaan isticmaalka mobiladu dhaqaalaha wadanka iyo maciishada dalka iyo isbedelka lacagaha midna ma samayn maysan commission gareyn dad samayn kara wadanka waa joogaan dawladuna maysan samayn regulation iyo shuruuc waayo marka la ogaado dhibta waxaan leeyahay iyo faa'iidadiisa ayaa la samayn karaa shuruucdii lagu control lahaa marka dawladuna ma samayn shuruucdii haddayba jiraanba maamulo iyo maba aysan samayn baan isleeyahay shirkadka qudhoodu ma aysan samayn baaritaan la xiriira sida lacagtooda adeegoodu uu saameyn ugu yeelan lahaa dhaqaalaha wadanka laakiin haddaynu fiirino guud ahaan dhib weyn ma uusan keenin faa'iidooyin buu keenay waxaa kaliya oo yaraaday lacagtii gacanta lagu watay baa yaraatay laakiin markay noqoto wax kala gadashadii iyo lacagtu inay circulation marto qofka taga Soomaaliya wuxuu ogaanayaa baalashlaha iyo waxa ugu yar koobka shaaha yani ma aha kaliya dadku wax dollar in lagu gato 0.1 buu qofka wax u gadan karaa baalashlaha lacagtiisa waxa ugu diraysaa mobile laakiin mechanismkii lagu control lahaa lacagahaas iyo lacagahaas ay dalka dib ugu soo laaban lahayn iyo lacagahaas lagu faalgelin loo maalgelin lahaa iyo faa'iidada helayaan sida loo xadidi lahaa iyo saameynta ku yeelanaya dadka danyarta ayaa waxay tahay wax loo baahan yahay inay commission gareeyaan shirkadkaasi si loo ogaado saameyntooda Siciid waa mahadsan tahay cabdi adiguna aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigii ayaa gabagaba ah inkastoo markii hore waqtina loogu daray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin farsamayaqaanada waqtiga dheeraadka oo ayna siiyeen Siciid qadiyadda haddaynu kusoo xirno midaan mobilkan lacagaha lagu kala gato xaggee laga kontroolaa oo sidiisaba lacagihiisa iyo wixiisa bangiga waa bangiga kontroolaa haddaa ogtahay maya waynu qiyaasi karnaa mechanismka u shaqeeyaan iyo qaabka u shaqeeyaan iyo cidda leh waa ganacsato Soomaaliyeed baa leh waa shirkad Soomaaliyeed serverka iyo bangiga iyo xaggee bay ku yaalaan iyagana weydiinayna laakiin inaga hadda waxay noo muhiim ah saameyn noocay ku leeyihiin exchange rate-ka sarafka lacagaha qayb ma ka qaateen burburka dhaqaale hadda ka jira wadanka in la controlana haddii la control xal ma la gaari karaa marka shiina waxaan kusoo gabagabayn lahaa anigu dhibtaan hadda haysta Soomaaliya oo dhaqaaluhu waa dhib culus oo keeni kara Soomaaliya inay dhibaato labaad oo dagaal sokeeye iyo dadku markay faqriyaan nolosha ku adkaato laba control karo amniga dawladdu ay aad ugu mashquulsan tahay ma imaanayo wada noolaanshaha iyo dib heshiisintu ma imaanayso haddii aan xal loo helin azmada maaliyadda si xal loogu helana waa in laga faa'iideysto cuquushii wadanka oo dabada joogtay
waa in dowladdu ay commission garayso in baaritaan lagu sameeyo waa in la diyaariyo institutionadii regulate garayn lahaa ama maamuli lahaa dhaqaalaha wadanka iyo lacagta waa in dowladdu ay soo celiso kalsoonidii ganacsatada iyo dadka caadiga ah ay ku qabeen dowladda iyo shilin Soomaaliga dadku shilin Soomaaliga wax kale uga cararmayaan waa kalsooni baan lagu qabin shilin Soomaaliga iyo dowladda waxaan rajaynayaa barnaamijkii inaanu soo gaarnay xilligii aanu soo xiri lahayn waxaan u mahad celinayaa alle marka hore marka xigta Siciid Cali Shire oo barnaamijka igala qayb qaadanayay iyo dadweynihii kale ee ka soo qayb qaatay xagga taleefanada haddii ay jirto cid isle waxba idinka si gaar ah lidin yeelay annagu cidna uma aanan jeedin umana aanu talagelin waa ka raali gelinaynaa ciddii ismoodsiisay laakiin cid gooniyo hadda annagu aanu farta ku fiiqnay ma jirin barnaamijkaana waxaan rajaynayaa inuu noqon doono barnaamijyo kale oo badan si aan uga samayno maadaama ay tahay wax taabanaya noloshii dadkayaga iyo dalkayagii intii dib aanu kulmi doono waa anigoo Cabdiraxmaan Axmed Guuleeda iyo bahda farsamada Soomaalisaad oo idlahaanteen ba idinkaga tagayno ilaalada alle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh